guddi waalidiina oo runtii aad caafimaad qabto haweenana waanu samaynay dadka waxaa noqotay intii sabaan aan tagno oo ayana qayb gacan naga siiso kuraasta meesha noo taala oo ay waalid noo soo sameeyeen waxaa ka mid tahay codsiyada aan u gudbisanay aan bulshada u gudbisanay qaybo kale oo kuraas ka sugaynaana way jiraan sayidka iskuulka haddii la yidhaha waxa la wixii baa ku yaalay waa bedelay haddii la yidhaha markaan dactirka iskuulka dhammaynana satanka waxaan doonaynaa inaan ka iskuulku leeyahay aan ku shubno halkan waa dugsigii dhexe Arabsiyood waa dugsi ballaadhan oo baaxad leh Arabsiyo waa magaalooyinka gobolka Gabiley ugu ardayda badan bay ka mid tahay marka halkan waxa noo yaala maanta kuraas laba kalaas oo ay soo sameeyeen ururka walaalaha Arabsiyood oo daafaha dunida kala jooga oo sidii horeba maamuluhu uga warbixiyay urur weyn oo gacanta ku haya horumarka degmada iyo samafalkaba waxa kaloo ururkaasi hore ay u dhiseen iskuulo fara badan oo ka sare ka mid yahay waxa kale oo jooga halkan guddigii iskuulkan oo guddi aad u firfircoona oo wax weyn la qabatay sanadkan iskuulka dayactirkiisana wax ka qabatay shirkadda Talasoona ay caawisay lacag $3,000 gelisay sanduuqii iskuulka loo sameeyay guddiga maamulkuna aanu intii kale ku samaysanay dayactirkii musqulaha iyo hawlihii kale noo yaalay wasiir waxa naga bilaa mushahar hal inan habluhuna jandarka waa la qiimeeyaa waa in iyadana mushaharna loo siiyo waxa kale oo u baahanahay 5 kalaas kuraastood kuraasidii iskuulka waa halka ay wada daadsan yihiin sidii loo dhisay iskuulka dabadeed kursi lama keenin iskuulada degmada oo dhanina badankoodu waa sida aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa wasiir firfircoon baa tahay waxaanu sugaynaa wax baahiyaha ay soo qoreen qoladaadu tiimka wasaaradda waxbarashadu inaad wax weyn nagala qaban doonto annagoo gudida waalidiinta dugsiga dhexe oo afkoodii dhan aan ku wada hadlayo baahiyahayagii waa la gaarsiiyay dugsiga sare iyo dugsi dhexaba waxaananu ka codsanaynaa inuu wasiirku aanu codsiga iyo waraaqda qaadin aanu nagu ilaawin oo si qurux badan uu nooga soo jawaabo dhammaan waxaanu ka bilownay 5,000 shilin beed maantana quruxdiisa wadiga saawarkaya marka wasiir aad baad u mahadsantahay maantood timiday maxaan ku raadayay gobolka Gabiley gaar ahaan degmada Arabsiyo gaar ahaan iskuulka dhexe aad baan ku salaameynaa baahideedii iyo waxaygu dhanba lagu siiyay wasiir haddaan nahay gudida waalidiinta dhexdaan isqabsanay anaga iyo maamulaha iskuulku dhexdaan u xiranay imikana baahida noogu weyn waa kuraas oo imika walaalaha Arabsiyo noo keeneen 2 fasal intii kalena dhiman tahay marka waxaan ku leenahay wasiir baahideeda ay loobin anaguna haddaan gudida waalidiinta wax qabadkeega halkaas aanu ka sii wadi mudana wasiir saaka aroortii dugsiga saraan soo maray wax badan baa loo soo qoray waxaan hortaada doonaya inaan ka qiro agaasimaha waaxda dugsiyada asaasiga dugsiyada tooska waa Xuseen Cabdi Cawil weey ayaa halkan yimid maalin dabadna iskuulkaas soo galay iskuulka wuxuu arkay inaan kuraas lahayn dayacan yihiin less than 1 month or 20 days ayuu wuxuu ku keenay 3 fasal kuraastood aad baan ugu mahadnaqaynaa iskuulkan haddaynu nimaadno haddaad sidaa u eegtaan iskuulka imika in farta laga qaaday wadmooda hawsha intaa la eg waxaan ugu mahadnaqaynaa oonu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa hablaha halkaas oo fadhiya oo intay dhexda xidheen iskuulkaasi guddiyo oo ka shaqeeyey iyo ka tegi maayee shirkaddan Telesom oo inan ilaahay wanaajiyey ka yahay maareeye oo intuu u codsaday hay'adda sare waxaasoo lacaga geliyey marka runtii waxa weeyaan aad iyo aad bay u mahadsan yihiin farxad weyn bay noo tahay runtii dadka Arabsiyo oo wax wada qabsaday inuu maanta wasiirku halkan oo waxa weeyaan indhihiisa ku arko aad bay sharaf noogu tahay goobo kale oo waxyaabaha qaarkood iyaguna iska kaashaday horaan u soo maray saaka subaxii markii aan wasiirka sugaynay iyaguna dadaal bay sameeyeen waan ku hambalyeynaya halkanna gudida waxa weeye iskuulku leeyahay iyo dadaalkay sameeyeen aad baan runtii ugu mahadinayaa in miisaanka xasanaadka Ilaahay ugu daro awlaadda ay qurxiyeen waa awlaaddoodii waxaanan aad iyo aad ugu mahad celinayaa wasaaradda waxbarashada oo runtii ay mas'uuliyiintii kale saraakiishii wasaaraddu nala socoto oo ballanqaadyo kale ay ka sameeyeen goobihii aan joognay iyagoo fulinaya siyaasadda wasiirku ku hogaaminaya wasaaradda iyo siyaasadda xisbiga kulmiye labadaba aad iyo aad baan wasiir kaaga mahad celinaynaa saacadtu wasiir waanu kaaga mahad celinaynaa runtii inaad safar ku timaado gobolka Gabiley aad ugu kuurgelayso gudiyadii aad dhistay sida u shaqeynayaan
iyo sidoo kale xaaladda waxbarasho degmadan Arabsiyo sida horeba looga warramay waxay ka mid tahay runtii meelaha waxbarashada aad iyo aad ugu wanaagsan hadday tahay iskuulada hoose hadday tahay kuwa dhexe iyo hadday tahay dugsiga saraba iskuulkan aynu hadda joognaana wuxuu ka mid yahay iskuulada dhexe runtii tirada ardayda iyo macallimiintuba runtii aad iyo aad ugu wanaagsan yihiin aad baan ugu mahad celeynaa marka laga yimaado dawladda shacabka iskood isku dara ay dadka baahidooda ka shaqeeya runtii door weyn bay leeyihiin ka dawlad hoose ahaan baahida degmada Arabsiyo xagga waxbarashada hadda gacanta waxaan ku haynoo dhamaystirmay fasal aan ku kordhinay dugsiga Carra Guduudan oo gudoomiyaha degmada iyo ay noo soo gudbiyeen oo dhamaystirmay qalabayntiina runtii loo geyn doono hadda ka hor Carra Yaambo iskuulka isaguna hal fasal baan ku kordhinay macal kuraasidiisii marka hadba sidii suuragal insha Allah taala waynu u dadaalanaa kuraasida dawladda hoose degmada Gabiley baa bixin doonta insha Allah taala oo aanu halkan ka ballan qaadanaa wasiirkana baahiyaha kale aan uga taganaa insha Allah wixii awoodiisa uu ka qaban doono ilaahay baa mahadle mar labaad maanta waxaan u mahadnaqaynaa wasiirka waxbarashada iyo sayniska iyo waftiga hogaaminayo oo maanta nagu soo booqday gobolka si uu ugu kuur galo bal xaaladda waxbarasho iyo qorshihii wasaaradda ee meelaha u baahan in iskuulo laga dhisay ee gobolka waxa kale oo runtii aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dumarka Arabsiyo ama dibad ha joogaan ama Arabsiyo ha joogaan degmada Arabsiyo horumarkeedu laf dhabarta ku tiirsan yahay waa dumarka weey cid kasta oo dugsigan iyo meelaha kaleba gacan ka geysatay Telesom ka mid tahay runtii waan u mahadnaqayaa Saacatul Wasiir kulli gobolku waa sidaad ka warqabto waa gobol ballaaran oo muxuu ahaayay xagga waxbarashadana gobolada ugu ardayda badan lagu ka mid yahay aad iyo aadna waan kuugu mahadnaqaynaa aan ku soo dhaweynayaa gobolka aad iyo aad mahadsanid assalaamu calaykum wasiir saaka waanu ka soo lagu horeyno iskuul la yiraahdo Carra Yaambo baanu soo marnay waxay aad ugu rafteen oo ka cawdeen ardaydu markii eedkii dhameeyaan dugsi saraan aan haysan anagoo fulinayna siyaasadda wasaaradda waxbarashada iyo awaamiirtii aadna siisay iyo wareegtooyinkii hore waxaanu kaga dhawaaqnay meeshii dugsiga Carra Yaambo inuu yahay dugsiga hoose dhexe sare ardaygii iskuulka loo la'aa dugsiga sare loo la'aa imika iskuulka waa loo haynaa horta ilmo la oran karo dugsi sare waayay oo dabadna saas u baabacay laga bilaabo waqtigaan idin la hadlayay waqti ka horeeyay waxa uu shirki waxbarashadu siyaasadda waxbarashada waxa ka mid ah haddii kalaas loo waayo inay gelinka dambe ay dhigtaan midda kale iskuuladan gelinka hore la isku saarayo ee laba la kala jeedinayo laba xaq u wada jeedsanayo waxyaalahaas wasaaradda waxbarashada oo ka mamnuuc hadduu afar yahay hadduu shan yahay hadduu lix yahay intaba uu qaadi karaya waa inay shaqeeyaan waxbarashadii gelinka dambe Carra Yaambo haddaa hore ugu taqaaneen dugsi hoose dhexe waa dugsi hoose dhexe sare qofka aan binaadamka u mahadnaqo ilaahay u mahadnaqo waxa kale inuu mahadnaqaynaa walaalaha Arabsiyo oo aan leeyahay degmooyinka kale ama meelaha kale degsiimooyinka kalena ha ku daydaan iskuulka quruxda badan ee imika aynu dhex joogno daba fasal waxa dhisay walaalaha Arabsiyo oo gudaha iyo dibadda jooga dad badan oo dadkeena ururo ayaa sidaa uga qayb qaata taasi dhiiri gelin bay u noqonaysaa meelaha aanay ka hirgelin inay dadku iskaashka wax ku wada qabsadaan waxayna taasi muujinaysaa marka meel kale wax laga sugo waxa ka khayr badan oo ka waxtar badan markay dadku isku tashadaan wasaaradda waxbarashada iyo dawladdiina waa idin diyaar wax idin qabanayso maanta ujeedada ugu weyn ee safarkaygu daarana waxay ahayd guddiyeenu dhisnay degmo walba waxa loo dhisay guddi sharci baa loo sameeyay way isdoorteen guddigii degmadana way shaqaynayaan degmooyinka qaar baa markiiba hana qaado kuwii kale ka dheereeyay ujeedooyinka loo sameeyayna waxay degmo waliba isku tashado loo yidhi markii degmooyinka ay dadku caqliga iyo xoolaha waxayaan isku daraan qaar baa kuwa kale ka dheerayn doona marka qoladii baan doonaa inaan shirino qorshihii la sameeyno waxbarashada ee degmada Gabiley marka waxaan uga bilownay ilaahay idin daayay waxa haysataan maayer ku shaqaynaya qorshaha dadka oo dadka oo dhambi meelo badan waan ka idhay waxaan rajaynayaa inaan maayarada kale aanay arrinta ay igu waafaqsan yihiin maayarka ugu wax qabadka badan ee aan arko anigoon wasiirna ahayn waxbarashadan aan ka shaqaynayn
in kastoo waddanku ka shaqaynaya intaa haddana markaan tv-ga ka arko qorshayaasha siduu u wado waxaa u muuqanaysay dee sidii la doonayay inuu maayarku u shaqeeyo markaa waxaan nidhi de maayarka iyo dowladda hoose sidii ay ahayd inay u shaqaynayaan u shaqeeya meeshoodaynu ka bilaabaynaa waxaanu haynaa xogtooda liiska 71 meelood oo degmada Gabiile hoos yimaada oo aan iskuul lahayn oo dhaqato beeralaya amba beeralaya marka kuwa ma intaynu dhexdooda iskuul uga dhisnaynu dabeetana school transportation system u samaynana imaka arabsiyeenu joognaa dee 20 kilomitir ama 15 kilomitir baa haddaynu laba bas helo baa laga soo guri karaa oo gelinka dambana la rawixin karaa labada kaynoo jaban keebaa suuragala dee meelaha jira aanay bas iyo gaadhi midna mari karayn maxaynu samaynaa haddaanba tablet baynu samaynaynaa kaana imikaanu tishaabinaa 4,000 oo midh baanu soo iibinaynaa imika tablet telefoonka wax yar ka weyn oo cadceedda ku shaqeeya aan internet u baahnayn oo casharadii fasalka koowaad ilaa 12aad ay ku duuban yihiin oo video oo macallinkii oo hadlaya oo xitaa xaqiisa dambana uu taagan yahay qof sign language ama afka suuldhabaalaha ku hadlaya oo dadka baahiyaha gaarka maqalka ka qaba de si ay u fahmaan waxaan la sharaxayo marka carruurta markaynu u qaybino inuu macallin tababaro u sameeyno ee rural area-da ku wareega ama dhulka miyiga waynu isbarbar dhiganaa hadhow keeba waxa kale oo qorshaha ku jira fasallo temporary structure oo la isku xidho oo aan dhisma ahayn oo qiimahooduna ka jabay in aynu tishaabino si aynu 690 ka meelood Soomaaliland iskuulka aan lahayn 17 ka mid ay Gabiile ku yaalaan si aynu de u wada gaadhno dhaqaalaha ugu yar u gaadhno sidaas aynu isku ogaanaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.